dhammaan waxaan salaamayaa ehelka meeshaan ka soo qayb galay shirkan iyo allabarigan khayrka qaba oo ugaas suldaanku uu nagu marti qaaday iyo ehelka kale oo meeshaan jooga tuuladan magaceeda la yiraahdo gol barwaaqo insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto magaalo weyn tribka dambe insha Allah oo lagu soo hoydo oo dadku ehelka ay dhan isugu yimaadaan oo asaaskeedu noqdo asaas wanaagsan oo ummaddu ay ku soo hirato taasaan ilaahay ka barinaa subxaanahu wa ta'ala kulankeena waa kulan wanaagsan way meelo badan baa lagu shirayaa caalamka laakiin kulankan waa kulan khayr qabo way kulan dadka ehelka ay isugu yimaadaan isku barteen waxa weeye khayr ka dhacay weeye kulankan haddii aan si kale hawl baa ka jirta ayaantan doorashooyin iyo siyaasado iyo isqaqabsi iyo hawlaha ka jiray aad moodid waliba in xoogaa dadkii laba laamood ay kala noqdeen anagu laama ma nihin intayda hadda meesha joogta dadku waa soo kaaya mid laakiinse waxaan rabnaa insha Allah inaan midnimo guud ka shaqeyno muhiimadu waa taa way waxa la wada leeyahay oo dadku ay wada leeyihiinna in la ogaado inay qolo gooni ay soo lahayn hadday kuraas tahay iyo hadday siyaasad tahay in la wada leeyahay lagana rabo insha Allah in dadka odayaasha ah oo hogaaminaya beesha hogaaminaya in looga dambeeyo arrimaha noocaas waxa la carab iyo labadan baa isugu sokoy ayaguna waa isqaniinaan baa laakiinse way biskoodaan haddii macnaha ay helaan waqtigeeda hadday helaan dadku way isqabanayaan nacfi bay isku qabanayaan damac bay isku qabanayaan qof walba wuxuu jecel yahay hamigiisa inuu helo jecel yahay laakiin waxaa la rabaa inaan seerihii la dhaafin wax walba seeray leeyihiin wax walbana waxay leeyihiin madax bay leeyihiin haddii qofkii madaxa ahaa la dul maro ama dadkii u lahaa xaq la dul maro waxa iimaanaysa qofkii hoose ama mijaha ahaa inuu kor yimaado iimaanaysa hadhowna waxa iimaanaysa in tolki isgaran waayo oo qofkii qiimaha la garan waayo oo tilmaamada soo dhaweynayay oo magaca ku lahaa beesha dhexdiisa ama ma garanaysaa la rabay inuu noqdo qofkii dadka kala saari lahaa taa markan waxaan uga digaynaa insha Allah arrimahaas inaan ku dhicin khilaafka beesha in la iska ilaaliyo dadka laamaha inay dib u soo laabtaan inay dadka ehelka iyo ayagu ay shuureeyaan in wanaagga la qaato tafaraaruq waxa ma keeno kala tag buu keenaa waxba keeni mayo inta joogtaa kala tagaysa laakiin waxa fiican dadku inay aruursan yihiin ayagoo walaalo ah ayagoo isjecel ayagoo ay tahay ii cun iyo ii cun laakiin haddii nin walba uu yiraahdo anuu shantayda wiil iyo 10kayga wiil meel baan la maraya waxba keeni mayo marka insha Allah waxaan rabnaa khilaafka dadka nooga maqana Allah noo soo hanuuniyaan leena insha Allah dadkooda ehelka ha u yimaadeen ha la isgarabsado wixii ku jira meeshana ha laga saaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ودينا بعد دمان umada halka isugu timid ay fadhido salaadiintii iyo dubiyadii iyo umada kale dhalinyaro iyo culimo iyo siyaasiyiin bale wada salaamaya salaamkaan ugu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib waxaan isugu nimid xafladda tan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah siyaaradii Sheekh Maxamed Madhibe awoogan aynu ka soo askubnay taasoo lagu sameeyay meesha tan la yiraahdo gol barwaaqo una horseed ku ahaa qabanqaabadeeda Suldaan Mursal Suldaan Colaad dadka kooban ma aha halkan isku yimid waxa weeye mid bulsho ah oo aan reer ku koobnayn maxamed la yiraahdo ee ka kooban maxamed iyo maxaad bare taasoo aad ka arki doontaan sawirada iyo muuqaalada adilooyinka ama ka arki doontaan website-yada inta waxaan noo raacdaa in badan baa waxa laga hadlay waxyaabahan siyaasadda iyo saxa kan iyo wax kan tan baa ku horreeyay ka hadlay laakiin waan ku yeelan garanaysaa raaxinaya waxaan u malaynayaa 2016 halkan waxa yimid ugaas Bashiir waxaan nagu ma inaan haysan oogeen
lagumana qaban jirin waxa la yiraahdo kuraasi iyo doorasho tii alle ku timid iyo fadliga ilaahay iyo fadligiisa kursi baa halkan layna siiyey haddaynu ma dhibaan nahay ummaduna wuu sinay maxamedna gaaruma lahayn maxamed barhana gaaruma lahayn qof kasta iyo shakhsi ma dhibaanihina de wuxuu u lahaa waajib qofkii nacay doorashada ka qayb galaya insha Allah tawsaatay ku tagtay saxeedana isaga lahaa mana aha wuxuu isagu nacay samaystay ma dhibaan baan u samaynin Soomaali baan u samaynin dawladda xamar ee Soomaaliya oo dhan kunta shanta gobol maamul buu kala yimid waana soo halgamay Eldoret iyo muxuu ahaa Soodara iyo Djibouti iyo intaba isaga tagi jiray adeer kaadiisu soo cabay marka inta laga hadlo soo halgarteen maaha waxa weeye tanna adeer de waxa weeye ninkii hore u lahaan ba haddana u leh wixii sana isaga sita 135 ka oday ee Mareegas Kamooni ilaa raas Aseer laga soo xulay ayuu ka mid yahay waa shakhsiga labaad baan u malaynaya qofku waxa weeye inuu mala awaal doono maaha iyo wuxuu san lahayn anigu waxaan ku isku koobi lahaa markaa anagu ma dhibaan u kala saari mayno umadna kala jeedi mayno ama ay ka lagu shiro ama inuu ku shiro halkan inuu maanta joogno wixii lahaa un baa yeelan internet kaas ana kala saari anaguna garna u naqmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan inta isugu timi ee heer Sheekh Madhabe waa salaamay yahay waxaan ku salaamayaa salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaanka bacdigii halkan alla bariga la isugu yimi Suldaan Cali Mursal Colaad qaban qaabiyaha oo ahaa waa ku mahadsan yahay شيخني سيارتيسي وأكون مهتسنيه شيخ مدبي أنت كبعدك هلا كان هوشة كراسة إمام الكسيد أضياش يهرو يجوري وضان كترته هير كليا مدبان شركة يمقالوا في حمضة يتوفق الله أنت كل تشدو إلهي وحنا كبرينا السهدي إلهي وحنا كبرينا السهدي مقالوا في حمضة إن إلهي كدحصاره إلهي إنه متكلمه أنت سوي الدعاء كبعدي روح على إنما هو تلين هدو تليو لما أنت تجرين بعدها أنتني وإن وضع على الطي هذا الهلك نشوفه محمد إيه محمد برانا واقع لف كلية ما هي محمد نلف عن كتشوجين ما شرته محمد الرجال لف عن كتشوجين ما شرته أنت هذا أنا قام قلنا إلهي وحنا كبرينا أو ومد ملكتي من وضعته أما إيه مقالوا في حمو إيه ومعمل حمو كوكل عبورتي ما دمعنا حديث إن إلهي نوسو نبعي صوروا باني يلا كبرينا وأنا سلام يا وكم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa isimada salaadiinta nabadoonnada uqaysha iyo khiyaarta dhamaantood meesha isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله ilaahay baa mahadle inteena halka isugu keenay siyaaradii dadkii aynu ka soo dureernay awowayaasheen iyo ricankeen iyo qaraabadeen Allah ka sawaabay innaga inta barakadeeda Allah hayna siiyo ilaahay idankii inta kadib de bahashu waxaad moodaa siyaaradii in xaq siyaasadeed loo turjumayo qolana ay ka ku shirayso qolana halka ku shirayso inagu ma aha siyaasad inagu waa sadaqa aan waalidiinteena ula baxnay laakiin afkaarin la iska weydiiyaba haboon waxaan haddeer jiro oo siyaasadda lagu dhex jiro oo ma dhibaan ku dhex yaacayaan khalad baan u aragnay inay tahay sababtoo ah wixii lagu dagaalamayo waddankaba ma joogan ummaduna saa uma qaybtanto nidaam iyo habba meel u yaala in ma dhibaan ku kala fogaadana lama rabo oo qoloba meel ay sidii laba baar labada gar oo laba geel kala joogan meel ka doobiya lama rabo waxa rabaa nidaam iyo si sharaf leh in ma dhibaan waxa dhex yaala ay uga macaamiloodaan u qaybsadaan oo maskaxda iyo aqligu shaqeeyo ma garanaysa ummadda bilaadanka ahi system iyo nidaam baa u yaala iskaraamayn baa u taala kala dambeyn baa u taala in la kuwaas lagu daydo oo sida bilaadanku wax u qaybtaba mal hadda deegaan baynu degannahay gobol baynu caasimad baynu joognaa caasimadaasi sheeko aan ma dhibaan ahayn mala macnaha xubinta kaliya sida la isugu haysto way bilaadanka kalena korba wax ku lagu qaybsan ama maba yaalima wax la qaybsan la
waqtigii wax soo degaan dad bay leedahay iyo system loo raaco iyo nidaam loo raaco iyo qaab loo hindiso in meesha ay jidho loo doonto ergo ma taagna dawladda federaalkeed way haysataa wixii wax dhulka yaalba ma aha oo waxaan dhulka online baynu isku haysanaa bal warka hore waxaa la rabaa ma dhibaanow meel kastoo aad joogtaan in la fahmo waxaa la isku haystaa ma yaalin mise waa maqan yihiin wey wixii waa inay soo degaan cagaha dhulka loo soo dhigaa dabadeedna lagu qaybtano nidaam looga gudba wixii dawladdii baa haysata federaalkii baa haysta dawlad goboleedyadii kama dhammaan adduunku ima dib bay u dhacaysaa ma lagu dagaalamaya ma baaba'aysaa warba lagama hayo iyana isku karaamayseegin si nidaamsan aynu wax ugu qaybsanno hana laga daayo kooxaysiga iyo madhimaan inay isku dhacaan oo qoloba meel ku shidho oo qof walba la karaamayn waayo bila aadanka ilaahay waa iskaraameeyo haddeer caasimad baynu joognaa caasimadda suldaan bay leedahay oo jooga qofka yimaada oo martiga ahay waxaa la rabaa inuu isaga uga dambeeyo isaga marti u yahay oo wixii dhacaya iyo systemka iyo hogaanta iyo wixii haysta inuu isagu kala saaro inuu soo dhaweeyo in isaga looga dambeeyo sida bila aadanka u dhaqmaasaas weey sana walba malaayiin isimaaba meesha isugu yimaadaan laba nin baa sooriyay cidna uma dhaafto waxa marka karaama darrada ma dhibaan ku dhex jidha baa tabtaa keenaysa in malaba laba qabsato la isbaxso la kala yaaco waxaan leeyahay marka Allah isu soo keen hanuuniyo ma dhibaan khayr iyo sharaf iyo karaama Allah tuso ilaahay inkisaasa ilaahay ka baryana waxa la sugaayana hal loo dhigo cagaha oo hal la sugo waqtiga cagaha soo dhigtaan dhulka hal lagu qaybto si sharaf leh iyo karaamaha lagu qaybtamo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta soo qaban qabsay alla bariga sharafta leh iyo inta ka soo qayb gashay ilaahay idinka allahana ina ka aqbalan leeyahay isimada iyo nabadoonada iyo dhalinyarada sharafta meesha joogtaan aad baan ugu hambalyaanay wassalaamu calaykum waraxmatullaah dhammaan waxaan salaamayaa isimada sheekh bashiir oo horeeyo shacabka dadweynaha dhalinyarada inta meesha isugu timid ee ku soo qayb gashay siyaaradii sheekh Badhibe أرسل السلام يا سلام الله سلام كبعدي مديمان أمر الشيخ مديبي واحد قريبة يا أنا أكل كوفيات قاسي مالو تشوف قرن ماي مالو وضع قرن ماي واحد في عن ميقان كذا كلية هاي إنه قالوا markii kursiga yimaadaan soo yaaca inta kale ismooga midba meel ku nool yahay horta ninka foofeed qaan uu ogyahay kuwa kale waa inuu ku ogyahay wuxuu ku nool yahay maanta kursigan yimaado hadii la soo yaaciyo kursigan waxaan leeyahay ninkii xaq u laba qaadanaya saxiixiisa iyo bixintiisa waana sharcigu yaala sharcigaana sheegaya annagu kala garniqi mayno dal isugu yeeri mayno kuntiga qaafaadka sheegi inta waxaan ku darayaa war ma dhibaan waxaan leeyahay waxa fidmaynayo Allah ku qabto amiin waxa fidmaynayo Allah qabto amiin waxa isku diraya Allah qabto waxa sideeniya Allah qabto war ma dhibaan xalaal baan doonaynaa ma dhibaan xalaal ilaahay ha reeb Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay baa mahad iska leh naga dhiga muuminiin مسلمين إلهي بام هذا إسكاله الحمد لله رب العالمين waxaan u mahadcelinaynaa suldaan mursal oo soo qaban qabay xafladan weyn xuska awooga sheekh Badhibe maxamed gargaarte ilaahay waxaan ka baryaynaa waxay u niyeysteen ilaahay inuu gaarsiiyo ayagana ajar iyo xasan ilaahay inuu ka siiyo dhammaan waa salaamaya isimada saxaafada aqoon-yahanada waxgaradka dhammaan waxaan ku salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal sidaan la soconaa waxaan ku sugannahay magaalada Garowe khaas ahaan waxaan ku sugannahay maanta oo xafladan balaaran ay ka dhacaysaa gol barwaaqo ayay ka dhacaysaa insha Allah waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa iyadoo magaalo weyn ah oo barwaaqaysan oo wax walba ilaahay u kaamil ilaahay inuu soo nabadgeliyo ilaahay taasaan ka baryaynaa insha Allah walaalayaal sidaan la wada soconno xubin baa waxay taalaa magaalada Boosaaso xubinna waxay taalaa Gaalkacyo labada xubnoodna waxa isla beelweynta Madhibaan oo aan la kala qaadin insha Allah beel walbana wixii ilaahay xaq uu ka siiyay bay ka qaadanaysaa insha Allah waxaan leenahay marka labada xubnood halgamayaasha u soo halgamay waa nimankan iyo rag kale oo maanta dhintay Allah u naxariistaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga ha waasiyo waa loo soo halgamay waxaan loo soo halgamay bulshadan inay xuquuqdeeda wax u ka hesho maanta meel fiican bay maraysaa waxaan leenahay marka in la isku xurmeeyo
qof walba wixii uu soo qabtay bulshada in la isku xurmeeyo xaq buu u leeyahay in lagu xurmeeyo oo lagu karaameeyo xaq bay u leeyihiin ugaas maxamed bashiir iyo garaad cabdullaahi iyo raggii kale ee dhintay allaha u naxariistaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdawsa ka waraabi waxaan leenahay marka insha allah walaalayaal xubnahaanu uma baahna dagaal uma baahna siyaasad uma baahna dhibaato isimadu way keeneen waxayna u keeneen beelweyntii reer Sheekh Madhibe ayagaana iska leh waxaa loo baahan yahay xurmad ayagu ay leeyihiin in la siiyo xurmada isimada kale ay leeyihiin inay qaataan saas inay ku habboontaan rajeynaya insha allah waxaan leenahay marka waa xagaayadaasuna waa wax yar oo dhaafayse reer Sheekh Madhibe maanta xurmo iyo karaama ilaahay ina siiyay allah ina garansiiyo kuwii xaqsan allah ina ka dhigo insha allah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala hana caaweynina meesha insha allah barakallahu fiikum wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'di alawwal wa salaam ya dhamaan salaadiinta ugaas kugu horeeyo ugaas maxamed bashiir iyo suldaan mursal iyo garaadka dhammaantiin waad salaamantiin garaadada meesha joogo dhan dadka ma kala aqaan raaliga ahaada salaadiinta uga bax kullayba hadda waxaan isugu nimi meel golbar waaqa la yiraahdo wayna ka muuqataa golbar waaqa inay tahay ma sha Allah deegaankan anigu inta badan laamigaas aan ku socdaalaayo waa dhaafaa laakiin waa ii maanta inaan ku hakado ama maaragtay aan insha Allah taariikh ay noqoto inaan ku nasto magacaygu waxa la yiraahdaa Uways Axmed Salaad nin dhalinyaro ah baan ahay soo shaqeeyay aqoonyahanka beeshana ka mid ah ilaa wada beerka u dhiman waxaan oran lahaa dad badan oo waxaan arkayay waxyaabo badan oo hadda laga sheekeynayay in la isku qabsaday waxa la yiri sideedaba bil meeshiisa ka bilan jirin lagama fiiriyo ugaas maxamed bashiir waa dhaweyd waxaan ogaa xalfad la sameeyay xalfadaas oo aan qusayn danaheena iyo aytiinkeena xalfadaasuna xalfadan leh bay ahayd waxaan leeyahay inteenaan meesha fadhida sidii hore loo sheegay beeshu waa ka wada midaysan tahay ugaaska taariikhdiisa haddeertan sheegi mayno ammaani mayno wax walba yahay waa ku karaamaysan yahay laakiin waxaa la rabaa qofka wuxuu keenay waxaa leeyahay caano nin soo lisay la ogyahay nin walbaba ha sheegto shaqadan dadkii keenay iyo dadkii u soo halgamay intaba waa la yaqaanaa meeshan siyaasad looguma imaan oday laga soo askumay ilaahay jannada ha ka waraabiyo baa lagu xuseeyay meeshan kuwii ku caasiyana waxaan oranayaa jisaadada helayaan kuwii aan ku caasina dee abaalkeeda baa ilaahay ma garanaysaa waafajinaya annagu waxaan leenahay waa ka nasiib badannahay dadka haysta tafaraaruqa hal garab baan nahay casuumadan maanta aan samaynayna waa ku ma garanaysaa qalbi furanna waxaan ku ogaanaysaa inaan ku qalbi furannahay cid ismu caaraday ama cid ma garanaysaa isku buuqday ma jirto xalfadihii naga horreeyay iyo meelihii lagu shiray waxaa la sheegay gacan qaadyo fara badan inay ka dhaceen in ma garanaysaa waxyaabo badan la sugaystay marka waxaan leeyahay gorow waanu ka soo safarnay saako 40 kilomitir baan u soo aadnay ilaahay wax dhibaataa nama tusin haddana waxaan jecelnahay inaan si ma garanaysaa nabad qabto nagu nabad celiyo ducadana deegaanka u reebaynaa insha Allah sanadka xiga iyadoo intaan ka weyn insha Allah baan isugu imaan doonaa intii nool ilaahay nafta ku simo marka waxaan leeyahay tolow gacmaha la isqabsado waxaan waa siyaasad wax ka weyn baan hor yaalla yaan la isugu imaan siyaasad iyo kursi yar oo qofkii maanta qaato dib ugu soo noqonayn tolka horaad ogeedan dad badan baa qaatay mana aysan soo noqon tolka xataa waa inkireen qaybtood marka waxaan ka rabnaa waxba yaan la isugu imaan hawl ka weyn baan naga horeysay ummadu meel fog bay gaadhay war aanu higsi gaarno wuxuu oran jiray maxaa siyaad bar Allah u naxariistay war kacayaan tabcanne ba oran jiray dadka wuxuu yiri aanu kaalmaysano kuwii aan ma garanaysaa hadduu alla ku idmayo aan nafteena iyo dalkeena cadow ku ahayn war waxaan annaga nafteena iyo dadnimada cirdigeena aan cadow ku ahayn maantay aan kursi haddii loo dhiibana u dhiibano inkastoo aan musharaxayo hadalkaygu yuusan isdusine yaa la horada waa musharax waxba qalqaalsanaya laakiin qof aan u dhiibano kursigaan haddii alla idmayaan siisma haddii la yidhaha qofka kugu soo celimaaye ha loo dhiibto insha Allah birsan uga faramaroojino aad baan ni salaamay ugaasidan waa salaamaya dhamaantood ما شاء الله سلنك النبي محمد يو سورة قرآن
سلينك النبي محمد يو سورة قرآن إذا جاء الكهف يضع العلوس إذا جاء الكهف يضع العلوس سلينك النبي محمد صليك بانينو كديغي سوما قرآن يو كتاب كانينو سيدا سارهدي يقول كنو لا نصبح والبا مانتاينان قباي ترشيو مادا إلى قدبون مانتاينان قباي ترشيو مادا إلى قدبون مانتاينان قباي ترشيو مادا إلى قدبون قبان كبيلا بنقعل تويان وقبو قبان كبيلا بنقعل تويان وقبو قسيادي محمد قرقهار تويس كرفادية اسمادي محمد قرقهار تويس كرفادية اسمادي محمد قرقهار تويس كرفادية قواني يو هذا الكسوه قويا يقول قبيت قواني يو هذا الكوادا قاري قول قبيت قواني يو هذا الكسوه قاري قول قبيت ugaas ka ducaynayo duubku saaran yahay ugaas ba ducaynayo duubki saaran yahay suldaan lana hoosantay baa sabadka noo fadhiya gaarada talinayo taas ku saaran yahay gaarada talinayo taas ku saaran yahay waxaanu boogayay waxaanu beerlulaa waxaanu boogayay waxaanu beerlulaa markay beelahayagu beegisugu tagaan markay beelahanu nahay beegisugu tagaan waa ku maqsuudayo waad min mahadsantahay wiilasha ma dhibaanow midigtaydii baad tihiin wiilasha ma dhibaanow midigtaydii baad tihiin magoolan kufano oho migan baad tihiin magoolan kufano oho munad laa tihiin war munadaydiyo waadinka qalbiga ku maran munadaydiyo waadinka qalbiga ku maran war munadaydiyo waadinka qalbiga ku maran isimado idilyo odayaasha sharafta badan isimado idilyo odayaasha sharafta badan culimba udinka iyo caaqilada dhammaan culimba udinka iyo caaqilada dhammaan ugaas bashiiriyo wax gaaradkaan salaamaya ugaas bashiiriyo gaaradkaan salaamaya suldaan mursal waxaan u diirayaa salaan degdega gaarahaad cabdullaahi oo taashku kama dhaco الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما أنت ويبشو تهي سيدي يلا باتن ومالين جمعة وحنو هالكن السجون نمد سيارة الشيخ يجا الشيخ محمد مديبة رحمة الله عليه إلهي هون حريسته ونودي زيارة جوجا شهدنا ونودي سلطان علي مرسل أو سلطانك قبل كنوال وحن لنا سلطانك الله كبركايو سنة كيسنا بشبشية برواقة كجار إلهي إذا كيسنا وحن نقطون تولدن قل برواقة وحن نقطون تا ميل لي سوي ما دو أو سياروني كلو قدو هي نقطون تا إلهي إذا كيس أنت مركان دافع ومالين شمعة ساعة الإجابة كوشرته إلهي هاي نجا أقبل دعاء هاي ندقني سلق النبي وبركته صلى الله نجا أقبله ترى هي التوفيق مننا الله ينصيب أنت مركان دافع وح هالكن لي سقوي مد قبل كان نقال وحويه إن كراستا كرسينا الله كيني قلمود كرسينا الله كيني بودلان أو بوساسية الله إن مديوان وحقوق يبصلوا هدي إرجتها هدي كراستا مشرحين هدي تهاي وحي الله أو عالفيبه هرتنو والبكهلية وحماشة لقد دونا يعني وحير إرجدوا بقوليو كو ده أنت تشلب إيش ريشخ مدبيهين هم باقيبسن
cid kaloo qaybsanaysaa ma jirto cid dhaafaysaana ma jirto waa garba siman waayo waa dhaxal adoogeen dhaxalka adoogana waa loo siman yahay inta wiil u dhalay yuunbaa wax ku qaybsada iyo intii gabadh u dhalayba taasi waa mid labadaa kursi wixii alla u calfo allaha geeyo qaar taladeeda iyo tusmadeeda qaata allaha geeyo qaar ummadda reer Sheekh Madhibe guul horseeda oo meeshii biyo u geeya meeshii tacliin la tacliin u geeya meeshii daris la daris u geeyo oo wanaagga reer Sheekh Maxamed ka taliya Allah inoogu dhiib Allah inoogu dhiib Allah inoogu dhiib taa inta markaan dhaafo waxaan leeyahay khilaaf waxa loo xusoo tira male khilaaf beela inaga waaweyn ayaa khilaafaad ku kacay halkay jawaabtooda ama murtoodu halka ku gudhay waynu ognahay sabab inagoo dadka ka dhaqaale yar oo ka xoolo yar oo ka tacliin yar wax khilaaf inoo taraya ma jiro cunfiga waxa la yiraahdana la iska daayo cunfigu waxa weeye waa qabiilka sida xun loo fakarayo horumar lagu gaari maayo hadduu ugaas yahay hadduu nabadoon yahay hadduu garaad yahay hadduu ku shaqeeyo cunfi meel la tolka gaarsiin maayo ogaada waxa lagu gaaraa waa talo iyo tawfiiq waxa lagu gaaraa waa aqoon waxa lagu gaaraa waa ismaqal iyo xurmeen la isxurmeeyo haddaan shiikheena xurmeen weyno haddii keena ummadda u wanaagsan xurmeen weyno haddaan gabadheena tolka u fiican xurmeen weyno oo xurmadu ay naga tagto qabiil noqon mayno xasad hadduu ina galana qabiil noqon mayno tarankeenuna badan maayo tawfiiqdeenuna badan mayso waxaan leeyahay xasadka Allah inaga qabto wixiina xasada Allah inaga qabto oon caruurtii haweenku ku jirin Allah inaga qabto waxaan leeyahay ilaahay idankiis waxaan ka baranaynaa maanta maalin khayr qabta weeye in taladan iyo tawfiiqdan ijaaba Allah ka dhigo in taladan iyo tawfiiqdan ijaaba Allah ka dhigo kii si xun u fakaraya Allah inoo soo hadeeyo kii si wanaagsan u fakarayana Allah inoo toosiyo kii quman Allah inoo toosiyo kii inaga sii jeeda Allah inoo toosiyo kii xanuunsanaya Allah caafiyo meeytideena dhimatayna waa jimca Allah u naxariisto meeytideena dhimatay waa jimca Allah u naxariisto faatax iyo boqol iyo 40 ayada quraanka islaamku bishir ugu horeeya garaadada dhamaan dhalinyarada sharafta leh dhamaantood salaamta islaamka ugu salaamay anigu waxaan jaamac Ismaaciil Diiriye ragii xaggaana joogay oo xaggana waa joogay dadba xilay wala kaadla jaamac laba kaadla meeyaan uu danta guud oo beesheeda iyo reer Sheekh Madhibe ducada inaanu imaado baad ugu muhiimsaneed markaas sida darteed tawfiiqda Allahna waafajiyo hanuun iyo hadaayad Allahna siiyo albaabada khayrka Allahna furo kuwii kala shaqo maanta Allahna naga dhigo kuwii isku soo sameeyay soo arursada Allahna naga dhigo ala biyo meel godan isku yimaadaan xalata ugaas kale isku imaanaya waxa kale iska furu faraa baa laga hadlayaa meel godan isku imaanaya suudaanka soo gooynin meesha nina goosan maayo nina intuu meel loo laba tobnaad ula baxo dhimaayana kala goynaya xilata bishiirun baa kala goynaya Allahna waafajiyo dhamaanteed sida darteed kuwii isku duubnaad Allah naga dhigo kuwii kala yaaca Ilaahay naga dhigo anigu de codka dhalinyarada ku hadlay intaas ha ku soo dhameeyay dhamaan salaam bismillahir rahmanir rahim dhamaan waan salaamayaa bulshaweynta Madhibaan ee halka isugu timi Maxamed iyo Maxad Baraba anigoo garaad Maxamed garaad Cabdullaahi Colaad Cali waxa weeyaan halka waxaan isugu nimi xuskii awoogeen Sheekh Madhibe Allah u naxariisto isaga iyo wixii ehelkeena dhintay wixii islaamaba annagana Allahna waafajiyo taxaqa ah Ilaahayna faray inta xun Allah noo soo haday Allah ya hadiig bal ilaaha qofka hadduu ka leexdo Ilaahay inuu soo hadeeyo ayaa loogu duceeyaa keen xun Allah soo hadeeyo keena sana Allah waafajiyo intii naga dhimatay Allah u naxariisto shirkan aan isugu nimi iyo ducada awoogeen aan dhigana Allah naga aqbalo اللهم صل على محمد tan siyaasadda iyo annaga nooma taalo odayaal baanu nahay dadka siyaasadda waxa ku mashquulsan waxaan oran lahaa war halkay u taalay awal baayay Madhibaan u taalaa kuraastana Madhibaan bay ka dhaxaysay Maxamed iyo Maxad Bara waa u dhax wax la kala leeyahay ma jiro cid sheegan karta ama oran karta maanta annaga yaani naloogu sanbooran yahay ma jirto waxa weyn rag baa u soo halgamay rag baa naftoodii u waayay rag baa u soo silcay oo meel walba soo maray maantana waxa weeyaan
maamul ayaa waxaan ka talinaya maamulkaasaa hawsha wata cidday u idmadeen ee qalinka hayay unbaa iminkana haysa dadkana waxaa wanaagsan inaana lugoyn waqtigana laga lumin riwaayado iyo xaflado beena inta la qabto in ummadda lagu lugooyo ma wanaagsana waxaa wanaagsan ma dhibaan midnimadiisa wixii doonaya ayaan anagu garabka haysanaa ma igu raacdeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام والسلام يا isimada iyo nabaddoonnada iyo aqoon-yahanka iyo gabdhaha sharafta leh iyo dhammaan dadka meeshaan isugu yimi oo dhan waa salaamaya waxa weeye meeshaan waxaynu isugu nimi siyaaradii awowgeen sheekh maxamed jannadii allah ka waraabiyo inaynu xusno ayaynu isugu nimi meeshaan ku xusaynana waa gol barwaaqo taariikhduna waxa weeye 28 ama 27 bisha 11 2020 waxa weeye codku iga yara xiran yahay waxaan leeyahay ummadda la yiraahdo reer Madhibaan meelay joogtaba ayaamaha waxaan moodaa inay si u kala firiirsan tahay meelo badan lagu kala shiraayo ummaddaanu waa dad walaala waa dad ehela arrinta anu waxaan saarayaa xagga isimada waxaan ka codsanayaa inaan ka maqan maanta inay ummadda isu keenaan oo meel isugu yimaadaan oo ummadda isu soo ururiyaan waxaan yari waa siyaasad 4 sano weeye qof baa loo dhiibaya 4 sano 4 sano qofkii loo dhiibay ina kaba tegi laba qof baa loo dhiibay labadaba ina ka tagay xamar gale waxay tari doonaan Allahu yaclam marka waxaan leeyahay anugu maanta waxa weeye caana qubtay dabadooda lagu dhagaa war kala shirshir waxba inoo tari maayo qolob inay meel ku shidho waxba inoo qolona yaka ku shidho qolona qardho qolona boosaaso qolona garoowe qolona gaalkacayo waxaa la doonayaa shir keliya inaynu samayno hal shir aynu isugu nimaadno oo dadka la isugu uur xaaro oo la isugu gogol xaaro oo lagu walaaleeyo oo mid keliya laga dhigo hal la isu keeno isimadan anigu arrintaas oo dhan saaraya waxaan la qaybsanayaa waa bahal yaroo bahashiiya waa 200 oo baalkiiya oo ergaah 101 iyo 100 wixii waxaan leeyahay ha loo qaybsado sidii walaalnimo idina ka dhergi mayso xabad ergaa oo la siiyay ama 2 ergoo la siiyay ama 10 ergoo la siiyay nin ka dhergaya ma jiro dadka hal la keeno meel la isugu keeno kala qaybinta iyo adba meel anaa wax ku qaybinaya anaa meel fariisanaya anaa amiir anta amiir miir sabqal xumaar bali adigu hadda amiirta ana amiir ayaa dameerka kaxaynaya waxaan leeyahay anu marka ummadda mid keliya laga dhigo hal meel la isugu keeno hal meel la isugu keeno waxa weeye kelmad carabiya weeye waa 2 nin oo dameer wata labadii baa ku diriray inay dameerkii wada kaxeeyaan نوعي أمير بانا أنا أمير بانا بالضمير أنا أنت أمير وأنت أمير بانا مين سوق الحمار بانا بالضمير قال ياك حيرة هذين لا أمير بركة وحوي ومتى يا سيدا لقد يجيب ومتى ميرها اللي يسوق نينا يوم ما حماك قادي نينا يوم سوق عيبين نينا وحن وإرجع حنا لقيمين أيو هي لا واحد اللي ما له كلا دورنا أيو هل ميرها اللي يسوق كينو ودتك هل وناجي وهل ولا عليه Madhibaan 2 uma qaybsamo 3 uma qaybsamo 4 uma qaybsamo waa qabiil kaliya isku dhiiga saasaan leeyahay anugu intaasaan ku soo gaabinaya waa yara xabeebsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الناس والإيمان الرجال والنساء والضفين بعد السلام وحام هذل الله أود له إنه كل بقعدا كيدها قبقبو ينا عودة قبوله degmada gol barwaaqo oo ay aasaaseen walaalaha Xuseen Maxamed oo hormuud u yahay Suldaan Mursal dan colaad cid baa aasaasta meel walaakiin waxaa ku intifaaca ummada fara badan
waxaan ilaahay ka baryayaa inuu beledkani noqdo beled barwaaqo beled karaamo miyi iyo magaalaba lagu soo hirto walaalaha Soomaaliyeed isugu yimaadaan ciddii aasaasayna ajrigeeda lahaato oo suldaanku hormuud u yahay suldaan mursal iyo intii gacan ku siisay ayna noqoto beled lagu nasto oo ummadda Soomaaliyeed saldhig u wada noqda oo aan la kala lahayn oo aan cidna laga ximinin inuu noqdo ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala intaa haddii aan uga baxay beledka oo nalagu soo dhaweeyo mudan inaan intaa u horumarino ka ugaas maxamed bashiir ahaan waxaan ka mahad celinayaa xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo tolku noo abaabulay oo sidii walaalaha reer Sheekh Maxamed Madhibe Garaad Axmed ee beelaha Gorgaataha way isugu yimaadeen ay odakeedu yihiin ayaan aad iyo aad uga mahad celinayaa oo aan khilaaf iyo xumaan mid ka dhex muuqanin waxaan ilaahay ka baryayaa midnimada walaalaha reer Sheekh Maxamed meel ay joogaan ba inuu ilaahay adkeeyo wixii khilaaf iyo wixii xumaan Allah inaga saaro midnimadeena iyo karaamadeena adkaata ilaahay ka baryayaa waxaan ku dardaarmayaa qabiil saddex meelood dawlad ka shabaha wuxuu ka shabahaa dawlad deegaan waa in beeshu deegaamada ay leedahay oo beled barwaaqoon maanta joogna kamid yihiin waa in la camiro muslimiinta iyo Soomaalida lagu soo dhaweeyo oo dulku ay noqdaan dawlad aan lahayn magaalo iyo dhul dawlad ma noqoto qabiil aan deegaan lahayn qabiil ma noqdo in la sii xoojiyo waa codsan lahaa kuwa jiray dal ka jira iyo kuwa cusubna beeshu inay xoojiso degmooyin waaweyn samaysana waa ku boorin la meel joogtaba waxaa kale oo dawlad ay qabiil ku metela dhaqaale haddii ayna dawladdu dhaqaale lahayn ciidanna ma yeelato xuduudna ma yeelato arrimaheeduna isma raacaan waxaan ku boogaanin lahaa beesha maxamed goyaate reer Sheekh Madhibe meel joogaanba in ay midnimadooda dhaqaalahooda adkeeyaan oo ay ilmaha wax baraan oo dhaqaale iyo sanduuqyo horumarineed la samaysana meel joogaanba ku boogaadinaya dawlad waxaa lagu metela xuduud dawladdu haddayna ciidan difaaca karaamadeeda lahayn ciidan difaaca badaheeda lahayn ciidan difaaca xuduudeeda lahayn dawlad ma noqoto qabiil aan lahayn quwad midaysan tawfiiq iyo hoggaan midaysanna horumar ma gaadho waxaan meel ay joogaanba kula dardaarmayaa iyagii ummadda Soomaaliyeedba iyo beesha reer Sheekh Maxamedba waxaan kula dardaarmayaa in aan mataqaana quwadeena iyo isku xidhnaanteena iyo adkeynteena inagu cidna dulmaynin in la xoojiyo ayadana waa kula dardaarmayaa adduunyada ninka maanta jooga bari ma joogo camal kasta oo qaban ilaahay dartii aan u qabanno oo ummadda ugu adeegnana waa kula dardaarmayaa murashaxa khayr Allah siiyo iyo murashaxiinta kalaba ciddii isu soo sharaxda kuraastan maanta labada kursi ah oo dhibta badan u soo marnay oo aan ugu soo marnay inay intan in ka badan ku istareexdo anigu waan ku faraxsanahay in mataqaanaay ummad badan damaaciya ka galaan waxaasoo dhan maalintaan u ordaynay aniga garaadka iyo rag kale maba aanan idin aqoonba haddaanu idin keenno nalagu eedeeyo iyo haddiina lagu caayiyana anigu waan ku istareexayaa maxaan ugu istareexayaa waxaan u wadnay oon u soo halgamaynay inay ummaddani waxay leedahay mar uun ay u tashato laakiin ay khilaaf la'aan ugu tashato ilaahay ka baraya mooyaane aniga waa cafi samee dadkii xumeeyey iyo dadkii caayay iyo dadkii wuxuu yidhi markhaatiga ahaada dhammaan cafis baa laga yaani waan keennay waxaan leenahay qaybsada anaguna waa cafinay aniguna waan cafiyay dhammaan intii wixii ka sheegtay intii xumaysaba waan cafiyay waxaan haddaanan keenin oo kursiga keenin oo aanan keenin maxaad ku murmi lahaydeen reer Sheekh Maxamedow waxba haddaan alxamdulillah ku lahaydeen ayaa dhigna tirahdeen waan idin dhigaynaa waan idin saxeexaynaa ee si wanaagsan ugu heshiiya ergadiisa iyo sharaxiisa nin uu laga xigaa ma jirto nin aan anu gaar uga xigaana ma jirto nin aan ka riixayaana ma jirto waxaa iga ballan ah signature baan ku leeyahay international ah kaasaan idinku waxaysbayaa isimada wax qaybsanaya cuqaasha la qaybinaysa gurboodka la qaybinaya murashaxiinta goob joog noqonaysa wixii inuu sharafta ka jirnaa roon oo nin aan waxba haynin uu dad u goynin oo anigu aan dad la goynin waxaan ka xishoonayaa ilaa hadda ilaa systemkii aan helay inaan wax sheego laakiin meelaha warban ka maqlayaa intii soo lugoodayna Allah ka ajir siiyo oo Allah ka cafiyo intii soo lugoysay iyo intii dhibaataysan ee baahida gidarada la shaaxnaysa kuraas aan lahayn waqtiga hawad joogto
lagu keenayna waxaan leeyahay waan uga tacseenayaa shakhsi ahaan waan uga tacseenayaa waan uga tacseenayaa haddaan maanta hanti hayo runtii guryaan uga karin lahaa gidaarada jiifa rag badan kuwa xidhanna waan ku soo dayn lahaa u xidhan oo ku xidhan marka waxaa weeye intii soo halgantay ee kuraastan u soo halgantay ee dhimatayna allahu naxariisto inta nool oo hadda garaadku igala joogo oo runtii la'aantii aysan suurto gashan wax badani oo kuraastan ku saabsani iyagana ilaahay ha barakeeyo intiina oo iyo inta naga maqan oon codkooda ku shaqaynaynay oo karaamadiina ay waxaan ku yimaadeenna ajri xasanad allah idin siiyo maxay haddaydaan jirin oo aanan idindila qabin yoom min alayaam reer sheekh maxamed markaad isugu imanayaan waxay leeyihiin maana halganin walaakiin annagoon idin aqoonin yaanu idin halganay waana idin keennay waana idin haynaa waxaanu idinka leenahayna ma jirto waxaanu idinka riixaynaana ma jirto meel aad joogtaanba waxaan idinkula dardaarmayaa midnimo meel aad joogtaan waxaa lagu dardaarmayaa jiiraanka inaan laga walaaloobo meel kastoo jiiraanka la leenahay waalada muslimiinta waxaan aad iyo aad walaaladayow nin leehado qorane oo halyeeyada ka mid a meesha lagu yidhaahdo beledka lagu yidhaahdo daarasalaam raggii xididada u muday ah ayaa maanta wuxuu ku xidhan yahay garoowe arrin wuxuu ku xidhan yahay shil ma aha inuu nina dhacay ma aha inuu nin waxeeyey waanu wada gurmano aanu wada gurmano ma aha kanuu kan yaa kan maaha waa halyeeyadeenu ka mid yahay intii kale ee xiran iyo inta aan quwadeenna midnimo ku muujinno taasaan ku guulaysanaynaa kanaa kan iyo kanaa kale maya qorana waxaan rajeynaa inuu dhaqso uga soo baxo beri waanu boqoynaa ilaahay fadligiisa waanu u gurmanaynaa waanu tegaynaa damaanadiisa iyo nidaamkiisana waan ka qayb galaynaa magtana waa iska bixinaa insha allahu tacaala haddii inteennaas aynu u guntanno oo inta daarasana u gudbato oo inta golole u gudbato oo inta xerajo u gudbato oo deegaamadeena ilaa kartid u gudbanno oo aan halkan uga gudbanno waa basiid bay u baxaysaa laakiin tawfiiq la'aan waxba kuma baxaan waxaan codsanayaa inaynu midnimo iyo taariikh hayno waxaan kaloon idin sheegayaa oo aan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo maadaama beledkan uu aasaaseen walaalaha xuseen maxamed inaad iyagana u ducaysaan beledkana taariikhda golo beledadii kala jiray diiwaankiisa lagu geliyo inuu yahay beledkani soo siyaaday oo waxaysmay waxaan isimadii baa jooga garaadkii baa jooga waxaa jooga cuqaashii baa joogta dhammaan gobollada soomaaliya ay degtay isooga yimaadeen ergooyin ka socda xuseen maxamed waxay go'aansadeen inay bilaabaan midnimadooda inay bilaabaan midnimada kale inay bilaabaan isoo jeedidda taana inaad reerka ugu ducaysaanna waan idinka codsan lahaa suldaanka khayr allah siiyo beledkana ku ducaysaan intiina ka soo qayb gashay ictiraaftaan oo beledka aad aqoonsataanna waan idinka codsan lahaa anuu codkiina ku hadlay waa la aqoonsay cumar waa aqoonsatay baarak allah beled golbar waaqo waa aqoonsanay waa beled kamid ah beledada walaa reer sheekh maxamed aasaaseen guul iyo gobonnimo kii soomaali isugu timaada allah ka dhigo kii aynu ku libaana allah ka dhigo tawfiiq iyo cizi meena joognaba allah ina siiyo ummadda muslimiinta meelay joogaanba allah badbaadiyo ummadda soomaaliya meelay joogta allah badbaadiyo dowladdeena iyo dadnimadeennaba kor allah u qaado ummadda soomaaliya dowlad dhexe iyo dowlad gobol iyo tu degmo kulli kuwi ummadda soomaaliya u sacyo wanaagooda allah inaga wada yeelo khilaafaadka meel walba ka jira allah inaga dhex saaro reer sheekh maxamed ku dhex jira الله كسارو مدني يقول ما تصل الكواريو صلى الله على نبينا محمد مين أجوجنبه قول يقبل والله فاتحة